الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت دمانتي وادي السلامة يا خاصة وحن دوميها جود الجلف وضنا عبد الرحمن عبد الشكور وراديو يوكي أنسكون هاي. أنا تايتل بانكوي من نيشان بابا تايتل وانتا مهمة كن كوادو عصر على خير ساحيب كيس إيوه كان لبعضو أساسيه قولها السريع CBP oo aan istaghfirullah aan ka iri iyo 16 bishii November ayaa anoo live ka qaylinay waxaan idhi waliday waagi waxay ahayd xasan sheekh madaxweyne oo ahaa memory of understanding ayaan rabay Soomaali inaan u macneeyo way igu adkaatay waxaan idhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur MOU-dan uu saxiixay badda Soomaaliya ayay badbaadinaysaa la ogaado dagaal lagu soo qaaday marar badan ayaan ka hadlay waa la socotaan 13 October anaaba soo alifay anaaba kaaga horay Cabdiraxmaan inay tahay maalintii cafis weydiinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur runtii Soomaali ahaan waxaa naga maqan qofka siyaasad ahaan wax kaga soo horjeedi kartaa laakiin gartu Ilaahay bay taqaanaa Cabdiraxmaan anoo CBP ahaa weligayna ma oran Cabdiraxmaan bad ayuu gartay sababta CBP dhaxda way kala sareysaa kuwa waxaa jira degree haysta kuwa masters haysta kuwa aan magacooda qori karin marka narrative-ka la rabay waqtigaas in la iibiyo waxay ahayd Cabdiraxmaan waan arkay waxaan ninkan lama mari karo waa intellectual waa nin aad wax u bartay siyaasadda adduunka la socda sidee lagu jaafayn karaa waxaa go'aan loo gaaray arrintan badda ha la iibiyo aniga kuma jirayaan dhahay sababtoo ah inay soo laabanayso waa ogaa ogaa waxaa lagu tuhumaa inaan wax bartay marka intaas ay badbaadayso Cabdiraxmaanow caawa aadan ugu faraxsanahay in halkan la yimaado dad badanna hadda galabta boorkaanan soo geliyey dad badanaa ka naxay anoo ay farxad gelisay horta sababta waxaa idiin sheegayaa 2014 ilaa iyo hadda arrinta baddan daba socday safaarad meel walbaa lagu bursan jiray from day one waxaan aaminsanaa MOU-gan iyo sheekadan la rabay in la gado inaysan soconaynin wayna banjartay ugu dambayntii waxaan leeyahay labada reer ee Soomaali waaweyn ayaan ka dhashay haddii mid iyaga ka mid ah ay ku ijaafeeyeen anaa kule cafi waan ku raaligelinaynaa raxweyntu waxay ku maamahdaa afwaako mayla ka aamee hadda sheekadii badda waa soo afxirantay adiga waqtigii gudoomiye ku-xigeenka CBP-da aan ahaa ayaa qoraalan soo qoray qoraalkaas wuxuu ahaa maxkamaddii heegaa la joogay anoo heeg jooga waxaan soo qoray oo Cabdiraxmaan hadduu badda gatay kiyaatiga refund ilaa adduunka refundaa la dhiibaa lacagtiisa inay ka soo ceshtaan marka narrative-kan in la gadaa la rabay lagu dhibaateeyo waa gedmi waaye caawana waxaan u nahay anoo nool idinkoo nool markhaati waxaan u nahay in waddankan adiga uu ku baahan yahay sababtaan u leeyahay hadda kahor 2020 markaan garow aan ku sheekaysanay Cabdiraxmaanow waxaan ku yidhi dadka kuma fahmayaan aniga un baa ku fahmay very few waxaa ku fiicnaan lahayd Denmark iyo Sweden iyo wadamada dimuqraadiga horumar inaad madaxweyne ka noqotid waxaad ahaan jirtay targetka number 1 ee CBP aad ahaan jirtay sababtuna waxay ahayd waagi Merkel maxaa u difacdaa leeyahay Cabdiraxmaan isma fahmid marka intaan ku dheeraan lahaa aad u mahadsantihiin waxaan kaloo idin sheegayaa qofka kaliya ee galmudug aad u taageera oo from Hopio ilaa Gaalkacyo tegay dad fiican ah oo gob ah qaraabo ah reerka aan ka dhasho koro iyo reerkiina iyagoo Soomaali la yiraahdo u soo wareegay qabiil waxa sheegi maayo waa iska fahmaysaa waxaan ka hadlayo marka waa la shaqaanaa Cabdiraxmaan tolkayga reerkayga magacayga anoon weligeen fariinbadaa gaday imaamadan ku saaraynaa reerka aan ka dhashay reerka ka dhashayna qofkii ku ijaafeeyey taas intaan CBP ku jiray weligeen wax kuma soo haddaan ku dhahayn caafi walaalo waa dhammaad waa maasanta